waxaa maanta kulan ballaaran ku yeeshay dhismaha safaaradda Soomaalida ee dalkani Kenya wasiirka arrimaha dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo qaar ka mid ah safiirada wadamada reer galbeedka u fadhiya dalkani Kenya waxaana kulankaasi lagaga wada hadlayay arrimaha dastuur samaynta dalkan Soomaaliya iyo meelmarinta roadmap-ka waxaana kulankaasi lagu lafaguray qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen sidii dhaqaale loogu heli lahaa meelmarinta arrimaha hirgelinta dastuurka Soomaalida waxaana kulankaasi kadib warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabaha la iskula soo qaaday iyo go'aamada ka soo baxay kulankan wasiirka arrimaha dastuurka ee dalkani Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil kulanka maanta aan galnay wuxuu ahaa laba ujeedo lahaa marka ugu horeyso waxaan shir aan la lahaa safaaradaha reer galbeedka oo degan magaalada Nairobi kuwaasoo nagala shaqeeyaan howlo badan dhinaca aan noqoto dib u heshiisiinta iyo dhinaca dastuurka ayna ahaayeen gurubyada nagala soo shaqeeyay roadmap-ka marka maanta waxyaalahan ka wada hadlayna waxay ahayd marka ugu horeyso in adduunka caalamka iyo annaga dowlad ahaan inaan isku si u wada aragno habkii lagu dhammaystiri lahaa ku-meelgaarnimada August 12 halkaasoo ah inay ku saleysnaato roadmap-kii aan soo saxiixnay September sanadkii lasoo dhaafay iyo principleski iyo go'aamadii ka soo baxay Garowe waxaan kaloo isku raacnay waxa waaye Garowe wixii ka soo baxay way fiican yihiin habab lagu sii wanaajiyo oo lagu sii weyneeyo la sii xoojiyo in ayna nagu caawinaan shirarka soo socdo kan Djibouti lagu qabanayo iyo kan London lagu qabanayo oo February ah inay nagu support gareeyaan in sidii loo dhammaystiri lahaa habka la isku raacsan madaxda sare isku soo raacday oo ah inuu dhamaado ku-meelgaarnimada dhamaato dawladda bilaabato August 12-keeda kulankan ayaa sidoo kale waxaa la iskula soo qaaday arrimaha shirka Ingiriisku u qabanaya dalkani Soomaaliya waxaana sidoo kale wasiirku sheegay inuu u cadeeyay wadamada ajaanibta mowqifkooda ku aadan arrimaha dawladaha Talyaaniga iyo Ingiriisku ay ku doonayaan in dib loogu celiyo Soomaaliya gumaysi casri ah kulankan maanta ee laga arrinsanaya arrimaha hirgelinta dastuurka iyo shirka Soomaalida loogu qabanayo dalka Ingiriiska ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay soo baxayaan baaqyo kala duwan oo Soomaalida loogaga digayo howlaha gumaysiga casriga ah ee ay wadaan dawladaha Ingiriiska iyo Talyaanigu kuwaasi oo la sheegay in la helay warqado hordhac ah oo cadeynaya qaabka iyo nooca ay dawladahaasi u doonayaan inay Soomaaliya mar kale u gumaystaan Cabdiraxmaan Umar Abdi Cabdiraxmaan Soomaali Royal TV Nairobi Kenya